abgaal meeshaan uu soo dildilo ma hor u soco gadaal u soco lagu ma karo dawladdii Soomaaliyeed sidii gaaladii Amisom ama Mareykanka tuuge war meeshaan cadu joog kaale ila soo gal Bismillahir Rahmaanir Rahiim galab wanaagsan waa ilaahay mahadiis inaan galabta goobo aan ku kulansanahay annagoo intaan dhan waxaana la yiri nigeedu buuxa maxaa la yiri agar u goda waxaan aaminsanahay galabta in garanoo godo galabta waa galabtii mantaanaynta waa galabtii midnimada waa galabtii dad ismuhurta ah oo isla ay isheleen waxaan rajaynayaa maanta kulankaanu inuu aas u noqdo ciribtirkii al-shabaab iyo midayntii iyo midnimadii dadka deegaanka degan oo gudoomiye Cali Jeeyta sheegay dadkaana waa isku mid waana isku saami marka la fiiriyo siyaasadda Soomaaliya iyo saami qaybsiga Soomaaliya 61 xildhibaan ay wada leeyihiin haddaysan wax isugu darsanayn ay wax wada lahayn miyaa wax la isugu dari lahaa inay walaalayihiin oo ay waajib tahay in ay shaqo hortaala oo culays hor yaala ay wada qabtaan oo cadow hor yaala oo ayaga u midaysan inay u midoobaan wax la qarinayo ma dalka Soomaaliya states loo kala baxay Somaliland mar hore go'day ayadaana maamul dhisatay ayadaa horumarteeda ka shaqaysata ayadaa amaankeeda ka shaqaysata deegaankeeda ayadaa xoreysatay ma nin inteena ka tirsana meeshaas tago maamula annaga ma u hagaajinni ma Amisom ma u hagaajis ma adduunyo u gurmata u hagaajis soo ayagu wax ma qabsan marka ayaguna waxbay gartaan oo dantooda waa gartaan annaguna doqomo aan dantoona garan miyaana inta Puntland ay kala dirisay maal dhaweed dekada Afrika ugu weyn laga dhisaayay dawladuna uma dhisin shisheeyna uma dhishin cid kale ma galay ayaga dhistay horumar ka socda intan qarax iyo qaxa ka socday madaawa wax la isku fiirsadaa annaga ayagu ma isku garashaana soo bini'aadam meel mooda dago dal wada la manihin way annagu aan u hooseyna ayagu u koreeyaan oo ayagu gabadhooduna baabuur u wadataa gabdhaheennuna ay aad u malaysaa digsi dabadiis marka la fiiriyo soo doqonnimo ma والله وبالله تالله قف عن هوية هنا Soomaali lagu gumaysaa inuu jir adduunka marka dagaal ka dhaco dadka guulaysta shuruucda dejiya dadka lagu guulaystana shuruucda la dejiya 91 hawiyada dalka kuma guulaysano sharcigi waxa dejiyay nimankii laga guulaystay nimankii guulaystana waa lagu dul dejiyay soo doqonnimo ma shabaabkan meeshan joogan Somaliland ka yimid godanaliya keenay idinka ma keenay nimanku ku soo dagana naageen waa ka furtay guriyiina waa ka qaatay lacagteena waa ka qaatay waana laay asagoo islaanimo ugu soo gudana soo doqonnimo ma wax kasta oo doqonnimo horta hawiye hoos yaalin hadda meeshaan la joogaa marka tiraasacad dagaal gal aniga dhuluga maqno ku leeh war hadduu dhulka maqnay walaalka uu ka maqan yahay nimankan shabaabka hadday inta joogaan talaalkooda joogan waa kugu soo fidaa kaama joogsanay dudublaad arkaysaa waxa leedahay warkaale dagaalka soo gal wuxuu ku leeyahay ii sheeg aniga wali deegaankayga lama soo gaar war si lagu gaar kaale kan inuu gaar rabo ku gaarsiin kaalmay lagu ma karo abgaal meeshaan uu soo dildilo ma hor u soco gadaal u soco lagu ma karo dawladdii Soomaaliyeed sidii gaaladii Amisom ama Mareykanka tuuge war meeshaan cadu joog kaale ila soo gal ma sugbala ciidankan weelo lama yeeli karo waxaasoo dhan hooyo aabba doqonnimo hawiye ah ama madaxweyne ahaado ama mid state ha ahaado ama gobernatoor ha ahaado ama taliye ciidan ahaado dalkii annaga madaxweyne ka ah taliye ciidanka annaga ka ah balaayadu annagayna haysataa hal xabana ma qaban karno soo doqonnimo ma war dagaalku hadda aad u socotiin waa dagaal xaq ah horta qof uu shaka uga jiro ma jira saddex arrimood oo dagaal leh xan waa leh xabaal waa leh xaraarsiman waa leh labada dabbe waa gar qofku inuu la xabaalo waa gar in la xaraarsimo waa gar laakiin in la xanto lagu xanto waa fulay waa cararay waa ceeb Sooma ninkii meeshaan inuu ka cararo horta guriga habartiisa joogo habadahan aad haysataan ninna waa ka kitibtaa ninna meesha ugu tala galo dhinac ka mara ninna fulanimo darteed qoriga la qaadi waaya Sooma horta ninkii ilaahay fulay idin kama dhigo oo ilaahay xabadu idin kama kitibsiyo
oo ilaahay idama baalmarsiiyo oo midda ridaan bal hela laakiin urkoola la rabaa urkoola ogaarata doqonnimadu nin doqonu dab idii mashida waa idinka dambeeyaa doqonnimada istaalo isqobqobka reehebel iyo reehebel maanta meel iska dhiga maanta annaga waxaan rabnaa meeshaan aas dad awal kala maqnaad maanta midaynaysiin inta kale in idinku soo biirto aan rajaynaa dadka aan wax ka sheegayo inaan nacbaahay maahan dhalinaan u raadinayo maahan waa caraado waxaan rabnaa cadowgan waa iska dul qaadi karnaa inaan u midoowno waqtina aan lumin gacmo wada jiray wax ku gooyaane wixii nin dhiba maxaa la yidhi tol ma dhibaan war nimankaan haddii xawaadla goonu dhibow ceyr goonu dhibow sacad goonu dhibow salabaan goonu dhibow abgaal goonu dhibow haddaan isku tagno maana dhibi karaa dawladdii soomaaliyeed oo afrika oo dhan uga awood badnaadaa inta isku taagnaan ridna soo ma daanyarta ma annaga iskaana dhici karta waxay noogu dhex jirtaa wallaahi waa doqonnimo tahaynaa guulaan idiin rajaynayaa waxaan rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya nimankaa shalay ayagaa noo midaysnaa jiray annagaa qoqobnaa jiray waa qabiilaysnaynay waa qaybsanaynay soo maanta waxaas god ku ridi mayno balan ilaahay ma tahay kuwaan wallaahi bilaahi tallaahi haddaad hal mar u dhaqaaqdiin inay wuftiinna keliya buubinaysee bini aadamkana ilaahay ummaddii wada jirto wax ou guul siiyaa annaga xawaadlaa lagu soo celiyey libaaxa geed ku jira nina daba intuu ku agshidow qiiqiisa ku soo baxshaa nina waa la diriraa habar gidir iyo xawaadle dabkow intuu shiday oo libaaxii soo baxshay habar gidir murusaal rabaa inay la diriraan annaguna hadda shib ma lihin annaguna hadda shib ma lihin meeshaas waxaan rabnaa hadday inta xabaddu ka soo dhacdan in loo wada rido inta hadday ka soo dhacdan in loo wada rido hadday inta ka soo dhacdan in loo wada rido maanta wixii ka dambeeya waqti lumis ma jiro cadowgana haddaanu adkaysanno oon geesinimo iska baarno raga ilaahay naga dhiga laba lafood asagu ma lahan annaguna hal laf ma lihine hal nafaan wada leenahay annagaana xaq ku taagane ilaahayda garansiiyo khayraanu isku ognahay reer goobood waxaan leeyahay nasiibaad leedihiin makaa laga soo qaxay soo madiino looma soo qaxin aasaaskii islaamka sooma noqon guulo hadday meeshaan ka timaado idinkaa guushaas aasaas u ah geedkii lagu midoobay ilaahay meeshaan allaha ka dhigo hal qof oo dadka deegaankan yimaaday saas ilxun ugu fiiran karta wallahi inaysan jirin la ogolaanaynin haddii haddaba la ogolaanayo ama waxaas la samaynayo haddaba kuu dhaanimaha dhagaray ka rontee dadkan walaalayaan la sirina meeshay ka yimaadaan ha u noqdaan yaa sugu may sooma cadowgiinna waa nimankaas shayaadiiminta oo kulligiin dhiiggiinna xalaalaystay horta kaas meel iska saara kadib maahanoo doqonnimadii shalay jirtana maanta ha laga gudbo dadka yimidna waxaan leeyahay idinkoo qable oo isku kalsoon oo aaminsan dalkiinnii deegaankiin inaad joogsataan meeshaan dega kana dagaala wax dareenan ha ku joogina waana mahadsantihiin